wardegdeg daawadayaal militariga Soomaaliya ayaa waxa ay ku sii qulqulayaan wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Baydhabo cutubyadii ugu badnaa ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku hubaysan dabaabadaha dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ay ku sii jeedaan inay isku furaan jidka u dhaxeeya Muqdisho iyo Baydhabo arintani waxay ku soo aadaysaa xilli dhawaan dawladda Soomaaliya ciidamadeeda xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka degeen magaalada Buurhakaba iyagoona isku furay Buurhakaba ilaa Deenuunay wadadaas oo jidkaas oo ah jid ay ku dhuumaalaysan jireen kooxaha nabadiidka ah ee al-shabaab talaabadan waxa dabcan maabkan dajiyay taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibrahim wararka haatan aynu helinaa ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay ka baxeen magaalada Muqdisho iyagoo ku sii jeeda isku furka wadooyinka u dhaxeeya magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo arintan waxay ku soo aadaysaa xilli dawladda Soomaaliya ay bilowday howlgallo ka dhana kooxaha nabadiidka ah ee al-shabaab howlgalladan dawladda waxa ku helinaya diyaaradaha dhawaan dawladda Soomaaliya ugu deeqday dawladda Turkiga diyaaradahaas oo kala ah Beeqradaadi ee Kanji kuwaas oo qayb weyn ka qaadanaya dagaalka adag ee lagu jiro nabadiidka kooxaha nabadiidka ee al-shabaab diyaaradahan darad waxay qayb weyn ka qaateen duqeynta goobaha ay ku dhuumaalaysan jireen nabadiidka al-shabaab goobahaas oo ku yaala wadooyinka u dhaxeeya Buurhakaba iyo Deenuunay waxayna garaaceen fariisimihii ugu weynaa ee kooxaha argagixisada ee al-shabaab ay ku lahayn halkaasi jidkan muhiimka ah ee u dhaxeeya Muqdisho iyo Baydhabo ciidankii ugu tirada badnaa ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku jihaysan waxayna ciidanku saacadaha soo socda la filayaa in deegaanadaas ay isku farasaaraan kooxaha nabadiidka ee al-shabaab iyadoona wararka haatan ay helinayaan ay sheegayaan in gabi ahaanba kooxdu ay qalqal weyn soo wajahday in iskaga baxeen hudadka ay kaga dhuumaalaysanayeen jidka u dhaxeeya Muqdisho iyo Baydhabo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa amar degdeg ku bixiyay jidadka ay xireen kooxaha nabadiidka ee al-shabaab in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isku furaan waxaana talaabadani ay horseeday kadib markii wadooyinka Deenuunay iyo Baydhabo ay ku guuleysteen in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si xoog ay ku furtaan talaabadani waxay ku soo aadaysaa iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo qorsheenayo gulfadii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ah al-shabaab warka haatan aynu helinaa ayaa waxay sheegayaan sidoo kale in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ku wajahan yahay magaalada Buurhakaba si halkaas ugu hogaamiyo dagaalka ka dhanka ah kooxaha nabadiidka ah al-shabaab guud ahaan gobolada Baay iyo Boqol waxa ka soconaya abaabulka ugu xoogganaa oo ka dhana oo ka dhana kooxaha argagixisada ee al-shabaab iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatan wadooyin cusub ay furteen wadooyinkaas oo laga weerari doono kooxaha argagixisada ee al-shabaab Soomaaliyeed General Ibrahim ayaa waxa uu wacad ku maray in gabi ahaanba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalmaha soo socda ay soo afjari doonaan kooxaha nabadiidka ee al-shabaab wuxuuna jananku xusay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka adag kula jira kooxaha nabadiidka ee al-shabaab howlgalladani way ka duwan yihiin howlgalladii hore waxayna sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaal xoogan ay maalmahan kula jireen kooxaha nabadiidka ee al-shabaab wararka sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay haatan dhaqaaqadii ugu xoogganaa ay ka wadaan deegaanada iyo tuulooyin dhacaad deegaanada Hirshabeelle qaasatan gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidamadu ku guuleysteen in gabi ahaanba deegaanadaasi ay ka sameeyaan dhaqaaqyo ka dhana kooxaha nabadiidka ee al-shabaab taliyaha ciidanka sidoo kale waxa uu gaari doonaa magaalada Buurhakaba waxaana halkaasi ku hogaamin doonaa dagaalka adag ee ka dhanka ah kooxaha nabadiidka ee al-shabaab abaabuladan oo si xoogan uga soconaya gobolada dalka waxay ciidanku sidoo kale ay ku guuleysteen in deegaano dhowr ah ay ka nadiifiyaan kooxaha nabadiidka ee al-shabaab goobaha sidoo kale sida weyn abaabulka ugu soconaya waxaa ka mid ah gobolka Hiiraan hadaynu ka xusno degmooyinka Maxaasi iyo Moqokuri deegaano ku dhow ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadaan howlgalladii ugu cuslaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ee al-shabaab sidoo kale ciidanku waxa ay ku guuleysteen in gabi ahaanba deegaanadaasi ay ka nadiifiyaan kooxaha nabadiidka ee al-shabaab Shabeellaha Dhexe ayaa ka mid ah goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan howlgallada ka dhanka ah argagixisada al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxa uu ku guuleystay in maalmihii ugu dambeeyay sameeyo kulamo ka dhana ama kulamo lagu xoojinayo dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee al-shabaab in guud ahaan gobolada dalka sidaas ay howlgalladu uga socdaan waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka ka dambeeyay ay ku sii siqayaan
goobo badan oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaalaysanayaan kooxaha argagixisada ee al-shabaab. Howlgalladani waa ay sii socon doonaan ayuu yiri taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana sidoo kale ciidamadu ay ku guuleysteen in deegaano dhowr ah ay ka nadiifiyaan kooxaha argagixisada ee al-shabaab. Sidoo kale howlgallo sidaasi la mid ah ayaa waxa ay ka soconayaan gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka aynu ka helayno deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaasi ay ka wadaan howlgallo ka dhana kooxaha nabadiidka ee al-shabaab, iyadoona ciidanku sidoo kale ay ku guuleysteen in gebi ahaanba deegaanadaasi ay ka nadiifiyaan kooxaha nabadiidka. Deegaanada Gandarshe, Jilimarka ilaa Dhanaane ay ciidamadu ka wadaan howlgalladii ugu xooganaa oo ka dhana kooxaha argagixisada ee al-shabaab, waxaana deegaanadaasi ciidamadu ay ku guuleysteen inay ka nadiifiyaan kooxaha nabadiidka. Sidoo kale ciidamada ayaa waxay haatan ay ku sii siqayaan jidka dheer ee u dhexeeya magaalooyinka Muqdisho iyo Tuwaarey, halkaasoo ay go'doomiyeen kooxaha nabadiidka ee al-shabaab, iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatan ay wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa oo dalka looga sifeynayo kooxaha nabadiidka ee al-shabaab. Gebi ahaanba waxaa si xawli uga soconaya gobolada dalka howlgallada ka dhanka ah kooxaha nabadiidka ee al-shabaab, waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolada dalka ay ka nadiifiyeen nabadiidka. Sidoo kale howlgalladani waxay si xawli uga soconayaan Jubbooyinka. Wararka aynu ka helayno deegaanka Gudha iyo deegaano ku dhow ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaasi ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ka dhana kooxaha argagixisada ee al-shabaab. Jubbooyinka waxa ay ka mid tahay goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan howlgallada ka dhanka ah nabadiidka, waxayna maalmihii ugu dambeeyay ay ciidanku ku guuleysteen in gebi ahaanba goobahaasi ay ka nadiifiyaan kooxaha nabadiidka ee al-shabaab. Mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xiriir dhow la sameynay ayaa wuxuu inoo xaqiijiyay in ciidanku ay haatan ay ku sii siqayaan goobo badan oo ka tirsan Jubbooyinka, waxayna wararku sheegayaan in deegaanada Bu'aale iyo Jilib ay ciidamadu kaabiga ku hayaan, waxayna ciidamadu sidoo kale wehelinaya diyaaradaha dagaalka. Duqeymo xoogan ayaa halkaasi ka dhacay, waxaana lala bartilmaameedsaday goobo ay ku dhuumaalaysan jireen kooxaha nabadiidka ee al-shabaab, iyadoona sidoo kale ciidamadu ay ku guuleysteen in gebi ahaanba deegaanadaasi ay ka nadiifiyaan nabadiidka al-shabaab. Wixii ku soo kordha howlgallada ka soconaya gobolada dalka dabcan wararkeena ayaad ku daawan doontaan. Fadlan hadduu muuqaalku ku soo gaaro subscribe inoo dheh channelka, muuqaalka meel dheer inoo gaarsii. Waa mahadsantihiin.